dhammaan jaaliyada meeshan iyo santaradeeda iyo ururadeeda rag iyo dumarba si xoog leh ayaan ugu mahadcelinayaa. waxaan isleeyahay waxaan aad u faraxsanahay kulankaas. طبعا رواياتي وانا si fiican ma ilaa musabcinaynin oo waxaa u malaynaa waa isku khilaafsanyahay miya waa yaaba aniga ma sabciyey kolkii waxaan arnaaba meeshan beerkan sacab dambi yahay marka waan kolkii tamaatana qaar waxaan arkay saas ahaan dhismaha qoyska marka loo yimaado arrinta adduunka ugu dhib badan meeshaas weeye nolosha dhan maxaa jira ilmahaas meesha laga soo bilaayo ilaahay og yahay dadaalku u baahan yahay kulliga ma naqaanaa saa daraaddeed in aad la isugu hawlo dhaqankeenna ka mid maaha waa ilmaha iyo dumarka iyo dhaqankeennii hore wax weyn ma ku fadhininaan inta hadda ka hadashana aad uma badna waxaan aad uga hadalnaa waxyaalo kale siyaasadaha iyo waxyaalaha waaweyn saa daraaddeed ayaa markii oo laga tabaayo oo toor adiga carruurta iyo haweenku maad ka hadashaaya waxaan ku yidhi waa kii weligeed baan isku tiri jira wadaadada iyo dumarka maxaa jira waxaan wax dilin asal waxay ahaan jireen wadaadada iyo dumarka marka aan waagii ayna wax dili jirin ayaan xagga dumarka ayaan la raacin jirin marka sheekh baan ahay saasaan marka dumarka xaggooda u jiraa soo saas ma hadalkeenu rag iyo dumarka yaa badan maya dumarkaa badan haddii wadaadada lagu daro markaas oo maxaa loogu daray leanna wadaadadu waagaas waxma dili jirin gabdhaha maynan boobi jirin waxooda xoolaha maynan dhici jirin intii wax dhici jirtay marka iyo intii kaa la kala qaybiyey marka waxay la tahay inuu inta wadaadada ay raalli ku noqdaan inay dumarka iyagu isku dad yihiin run ahaan dhismaha qoyska waxyaalaha muhiimku inoogu tusan yahay haddii aan dadaalka ugu weyn lagu bixinina khasaaraha u weynaa ka yimid saa daraaddeed baa marka hadda dareenka uu soo weynaanayaa carruurta iyo guriga dareenkiisu soo weynaanayaa markii xanuunku kaa bato waa ogtihiin aad baan uga fikiraa run ahaan marmarka qaarkood waan gabyaa mararka qaarkood waa ku heesaa mararka qaarkood waa maadaama ana carruur aan dhalay carruurna aan waxbaro dhalinyaro aan waxbaro aan arkay ilmihii yararkaa markay xumaadeen sida ay waxu dileen iyo siday waxu dumiyeen iyo siday waxu boobeen iyo siday dadku soo qarxiyeen markaan arkay meelahaa sanooyin ku dambeey run ahaan wax kaloo badan kama hadlo saa daraaddeed ayaa waxaan rabaa tix yaroo iska maansooyinka marka xanuun kaa bato ayaan rabaa halkan way iska duuban tahay waqti dheer insha allah ma qaadanayso ayaan rabaa inaan iyada ku bilaabo ayaan rabaa hadday uu soconaysa haddii kala arki doonaa marka iska dhagaysa intaas daban sheekh gabyaayo oo heesaaya dhaqan min ahaan jirin laakiin kolkii af carabi ay ku gabyayaan waa la dhagaystaa laakiin af soomaali ku gabyayaan wadaadada qaarkood diidaya wax la yaab la waayo maxaa gabay u dhexeeya wadaadadu waxay aqriyaan gabayaal xataa xunxun oo af carabi ah oo dhaqanka aan ku fiicnayn bay masaajida ka aqriyaan oo isagoo kumanaya iyo isagoo fasaad ku jira yaa masaajida laga aqrinaya marka carabi had mar yahay diintii wax la aqrinaya moogtahay laakiin marka haddii la iska gabiyo waxaa la sheekha maaragtay fanaan buu noqdaa la yidhahdo